السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wuxuu gaaray insaanka maanta horumar dhanka tiknoolajiyada ah. horumarinadani waxa sabab u ah rag dadaalay oo juhdi xoog leh bixiyay, isla markaana dunida ku soo kordhiyay aalado badan oo hindiseen ama ay ikhtiraaceen, taas oo keentay in habnololeedkii bini'aadamka fududaado oo wax badan iska bedelaan. haddaba aaladaha la ikhtiraacay waxa hormuud u ah aaladda kombiyuutarka, kaa oo noqday midka ugu muhiimsan aaladaha la hindisay qarnigii 20aad. markii la soo bilaabay ikhtiraacka kombiyuutarka ilaa hadda, aqoon-yahanada dhanka tiknoolajiyada waxay wadaan ama ay joogteeyeen horumarinta aaladani, oo maalin kasta wax cusub ayay ku soo kordhiyaan aaladda kombiyuutarka, taas oo sababtay in bulshada ay jeclaato isticmaalka kombiyuutarka. dhankan uu dhex maro tartan adag shirkadaha farsameeya kombiyuutarka, oo shirkad kasta ku bixiso dhaqaale xoogan dhanka cilmi baarista si ay u noqoto ama ay u haysato kaalinta koowaad ee caalamka ee dhanka tiknoolajiyada. haddaba aaladani waxay noqotay inta badan mid gashay guri walba oo ku yaala dunida. waa aalad ka mid ah nolol maalmeedkeena, oo aqal kasta waxay u tahay marti qaali ah oo aad loo ixtiraamo ama la ilaaliyo. haddaba waxaa ka mid ah shirkadaha farsameeya aaladda kombiyuutarka ee dunida ka jira shirkad Taiwan laga leeyahay, taas oo lagu tiriyo mid ka mid ah 10 shirkadood ee ugu fiican dunida ee soo saara aaladda kombiyuutarka. waxaan lagu magacaabaa shirkadani Acer, waxaana aasaasay tumaal lagu magacaabo Tan Shi. haddaba waa kuma Tan Shi? wuxuu ku dhashay Tan Shi gudaha dalkiisa Taiwan sanadkii 1944, wuxuuna wax ka bartay jaamacadda ummadda ee dalkiisa Taiwan, asigoona ka qalin jibiyey kulliyadda handasada, isla markaana gacanta ku dhigay shahaado master ah oo dhanka handasada korontada ah. ninkani waa tumaalka iska leh shirkadda inta badan aad isticmaashaan kombiyuutaradeeda ee Acer, taas oo ay aasaaseen asigii 4 kale oo saaxiibadii ah sanadkii 1976. ka hor inta uusan aasaasin Tan Shi, shirkadani Acer wuxuu shaqaale ka ahaa shirkad kale oo lagu magacaabo Union, halkaas oo ka ahaa shaqaale aad looga jecel yahay gudaha shirkadda, asigoona ku fiicnaa horumarinta kombiyuutarada. wuxuuna hindisay isla markaana farsameeyay sanadkii 1971 aalad wax lagu xisaabiyo oo aad u horumarsan. sanadkii xigayna asiga iyo saaxiibadii waxay ku guuleysteen in ay farsameeyaan saacad muuqaalkeeda og yahay qalinka wax lagu qoro. laakiin markasta wuxuu ku fakarayay Tan Shi inuu samaysto shirkad asiga gaar u leeyahay, isla markaana uu ka baxo shaqaalnimada. sidaas daraaddeed sanadkii 1976 wuxuu aasaasay shirkad lagu magacaabo Multitech, taas oo markii dambe uu u bedelay magaceeda Acer. waxayna ku shaqo bilowday shirkadani 11 ruux, iyadoona ku caanbaxday farsamaynta kombiyuutarada shakhsiyadeed. wuxuuna gaaray iibkeeda sanadkii 1996 $6 bilyan, iyadoona ka gashay kaalinta 7aad liiska kala sarreynta 10 shirkadood ee farsameeya kombiyuutarada. waxaana hadda ka shaqeeya in ka badan 15,000 oo shaqaale, waxayna wakiilo ku leedahay 100 dal oo ku kala yaala dunida daafaheeda. Tan Shi ayaa ah shakhsi hami sare leh, wuxuuna ku fikiray inuu shirkadiisa ka dhigo mid caalami ah. sidaas daraaddeed wuxuu ku dhaqaaqay inuu farsameeyo kombiyuutar leh xawaare sare, ka oo ku fududeynaya in howlahaada si degdeg ah aad ugu qabsato. kombiyuutarkani oo markii dambe suuqa qabsaday, isla markaana indhaha caalamka ku soo jeediyey dhanka shirkadda. dhanka kale wuxuu Tan Shi ku guuleystay abaalmarino badan, waxaana ka mid ah abaalmarinadaasi mid ay siisay sanadkii 1995 majalladda Business Week, taas oo ah inuu ka mid yahay Tan Shi 25 maamul ee ugu fiican dunida. wuxuu kaloo ku guuleystay abaalmarin la siiyo shakhsiyaadka lagu daydo. sidoo kale waxay jirradda caalamiga ee Frontier u dooratay Tan Shi inuu ka mid yahay shakhsiyaadka tiknoolajiyada ee ugu muhiimsan qaaradda Aasiya. waxaa kaloo loo aqoonsaday Tan Shi inuu ka mid yahay 100 qof ee ugu muhiimsan dalka Mareykanka. dhanka kale Tan Shi waxaa gudaha dalkiisa Taiwan looga arkaa nin qaran oo hormuud u ah tiknoolajiyada, waana shakhsi dhalinyarada dalkiisa u abuuray kumanaan fursado oo shaqo ah, isla markaana waddankiisa u soo jiiday sumcad weyn oo dad badan maanta u malaynayaan in shirkadda Acer laga leeyahay jasiiradda yar ee ku dhex taalla badda Shiinaha ee lagu magacaabo Taiwan.